madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo qaaday tallaabo adag oo la xiriirta dagaalkii maanta ee Daacish iyo sidoo kale ciidamada maamulka Puntland ku dhaxmaray deegaanada maamulkaasi wararkii ugu dambeeyay ee dagaalkani ayaan daawadayaal sidoo kale muuqaalkani ku eegi doonaa daqiiqadaha soo socda laakiin intaan u guda galin muuqaalka like saara si share gareeya oo la wadaaga saaxiibadiin ogaana follow soo dhaha mahadsanidin aynu ku bilownay faahfaahin dheeraad ah ayaa waxa laga helayaa qasaaraha ka dhashay dagaal culus oo maanta ka qarxay deegaanada dowlad goboleedka Puntland dagaalkaasi oo u dhaxeeyay ciidamada ammaanka Puntland iyo dagaalyahanada kooxda Daacish kaas oo maanta ka dhacay gobolka Bari dagaalkani ayaa waxa uu yimid kadib markii kooxda Daacish ay weerar culus saakay ku ekeeyeen deegaanka Dharjaalle ee gobolka Bari halkaasi oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa Puntland oo loo diyaarinayay inay Daacish ka saaraan dhulkaasi weerarka kooxda oo ku bilowday ismiidaamin ayaa waxa xigay dagaal toos ah oo dhaxmaray dagaalyahanada weerarka soo qaaday iyo ciidamada maamulka Puntland labada dhinac ayaa waxa soo kala gaaray saare dhimasho iyo dhaawac bale iyadoo oo Puntland ay dhankeeda ka dhinteen ilaa iyo 12 askari halka ay dhaawacmeen tiro kale oo intaasi ka badan sidoo kale kooxda Daacish dhankeeda waxa laga dilay ilaa iyo 8 xubnood oo ay ku jiraan ajaanib sida ay shaaciyeen saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka dowlad goboleedka Puntland ciidamada Puntland ayaa lagu soo waramayaa inay ugu dambeyntii guuleysteen isla markaana ay soo afjareen dagaalyahanadii weerarka soo qaaday ee Daacish inkastoo ay wali si rasmi ah ogeyn qasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee soo gaaray labada dhinac weerarka saaka ayaa ku soo aaday xilli maamulka Puntland uu qorsheenayo howlgal ka dhan ah kooxda Daacish ee ku dhuumaaleysanaysa buuraleyda gobolka Bari ee maamulkaasi Puntland dhanka kaleetana hadii aynu eegno madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa uu qaaday tallaabo adag oo la xiriirta dagaalkii maanta ka dhacay gobolka Bari madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo haatan ku sugan magaalada Boosaaso ayaa qaaday tallaabo degdeg ah oo la xiriirta dagaalkii maanta ciidamada maamulkaasi ay la galeen kooxda Daacish ugu horeyn Saciid Dani ayaa isbitaalka Boosaaso ku booqday qaar ka mid ah askartii dhaawacyada dagaalkaasi maanta ay ka soo gaareen oo la dhigay isbitaalka dib markii xubno ka tirsan kooxda Daacish ay saaka weerar ku ekeeyeen fariisimo ay ku sugnaayeen ciidamada maamulka Puntland dagaalkani ayaa dhaliyay qasaaro soo kala gaaray labada dhinac waxa ayna Puntland sheegtay inay dishay xubno badan oo ay ku jireen ajaanib ka tirsan Daacish dhinaca kale madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo wareegto soo saaray ayaa magacaabay guddiga taakuleenta iyo daryeelka dhaawacyada ee howlgalka ciribtirka kooxaha argagixisada ah ee ka dagaalama deegaanada Puntland kaas oo 7 xubnood ka kooban sida lagu yiri bayaanka Saciid Cabdullaahi Dani guddigani ayaa ka shaqeyn doona garab istaaga askarta ay waxyeelada ka soo gaartay dagaalka si looga warqabo iyaga iyo sidoo kale qoysaskooda iyo 3 December magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa magacaabay guddiga taakuleenta iyo daryeelka dhaawacyada ee howlgalka ciribtirka argagixisada ee deegaanada Puntland wasiirka amniga iyo sidoo kale DDR ta dowlad goboleedka Puntland wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadda dowlad goboleedka Puntland wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Puntland wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Puntland oo gudoomiyayaasha gobolada Puntland ujeedada magacaabid guddi waxa xubnaha wasiirada iyo sidoo kale gudoomiyaasha magacyadooda hoos ku xusan yihiin loo magacaabay guddiga kuleenta iyo daryeelka dhaawacyada ee howlgalka ciribtirka argagixisada deegaanada Puntland xubnaha guddiga waxa ay kala yihiin ee uu magacaabay Saciid Cabdullaahi Dani wasiir Saciid Jaamac Ali Qorsheel iyo sidoo kale 2 wasiir Cabdullaahi Bille Nuure 3 wasiir Cabdiraxmaan Axmed Cabdulle 4 wasiir Yuusuf Maxamed Wacays 5 la taliye Axmed Abdi Hurre 6 gudoomiyaha gobolka Bari Cabdirasaaq Ali Saciid 7 gudoomiyaha degmada Boosaaso Cabdi Fataax Xaaji Shanle guddigani ayaa waxa ay ka shaqeyn doonaan kuleenta iyo daryeelka dhaawacyada howlgalka buuraha Golis ee maamulka Puntland uu tafaxeedanayo hadaba waxa la farayaa xafiisyada ay warqadani ku socoto in ay guddigani gacan siiyaan
fududayn ah ee gudashada waajibaadkooda loo igmaday ayaa lagu yiri fulin wacan ayaa sidoo kale la sii raaciyay warqadani ayaa waxa ay dhaqan galeysay marka uu saxiix madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu qalinka uu ku taagay isla markaana uu ku saxiixay goordhaweed Saciid Cabdullaahi Dani warqadani ayaana si toos ah u dhaqan gashay guddigani la magacaabay ayaana la filayaa in ay hadda iyo wixii ka dambeeyay ay ka howlgalaan dhaawacyada soo gaaray dagaalada ciidamada maamulka Puntland la galeen ciidamada iyo sidoo kale kooxaha Daesh iyo Al-Shabaab daawade hadii aad soo gaartay dhamaadka muuqaalka ay sara si sheer garay oo la wadaag saaxiibada bogaana falow soo dheemaadsanid